kulanti wacan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado. halkeedii ayaan kasii ambaqaadinaa. Faysal iyo Filsan sheeka u socotay. Filsan waa gabar ujeeda badan ah. ujeedkeedu wax kala maahan ee waxa ay rabtaa wiilkan Faysalna wuxuu rabiyaa Faadumana waxa rabo ninkii kale odaga adeerkeed dhalay. sheekadu waa isku maqiiqsan tahay. gabadhii Filsan ahayd wiilkii Faysal ahaa jawaabtii uu siiyay ayaa ahayd Filsan abay ani gabar walaashay tahay runtii naftuna waxa weeye meelo badan ma rabi karto aniga Faadumaan jeclahay habeenii maalin Faadumaan jeclahay niyadeedana hal mar qof kale oo dumar kuma qaban dhibaatooyinka aniga iyo Faaduma hadda noo dhaxeeyna waxaan rajaynaynaa in aan ka baxno oo jacaylkeena uu guuleysto. inta goortii uu yiri ayay si dhaqaaqda iyadoo waliba aad moodo in sheekadu markan bilow iyo biyo dhaceediiba la joogo iyadoo kaligeed sii hadlayso ayay Filsan weeyaane waxa ay bilowda hadallo turiyo ah anigaba sidaa kii gabdhaha qaarkood lagu yaqaan waxayna tiri Filsan balay ma yiraahdaan kala geenin oo aanan dhexdiina ka dhisin darbigii Baarliin ama midka hadda shiinuhu damacsan yahay. inta goortii ay tiri ayay mar kale kaligeed isla talantay inay u tagto kii kale guriga joogay. cako kanaaba ee dhabay tiri waa dhoohan hadduu nin adag ahaa mar hore tan guursan lahaa booskana waa ii banaanaan lahaa saan yeelaa waa inaan u tagaa oo aan ka dhaadhiciyaa inuu gabartaas meelan isaga ahaan ba aysan aadan alla ilaahay waa fursad saacadan tii guriga waa ka maqan tahay aan guriga aado kaligeed ayadoo isla sii hadlayso mar kale Filsan midkaana way dhibray baadiyaha cako waa nin jilcan haddii uu naagtan gurso lahaa oo mar hore nin adag ahaan lahaa booska Faysal ayaa ii banaanaan lahaa tii xilligan guriga waa ay ka maqan tahay oo umaleynaa waa inaan u tago kii baadiyaha ahaa oo aan ka dhaadhiciyo inuu Faadumo ciyo gursado. inta goortii ay tiri ayay waxay soo aad xaafadii jidgooyooyin badan baa jiray cabaar si sahlan laguma tagi karin gurigana sheeko kale ayaa ka socotay oo habartii markaasi Faadumo hooyadeed ahayd iyo Faadumo sheeka u socotay ilaan hore loo yiri gabar iyo hooyadeed waxa ayna u dhacaysa sheekada. hooyo maxaa seetahay hooyo waa fiicanahay seetahay hooyo waa roonahay hooyo maxaa midaan kuu sheegayaa hooyo ninkan aniga kula mar hore baadiyaha ah hooyo aabahaana inuu idareemana ma rabo aniga una fahmo labadeena marka waxaan rabaa ninkan inaad adiga aad bal iska basareysidood meel iska saartido hooyo reer magaalada ku jecelaa hooyo walaa waan ku jecelaaday beesaniya taabe camal aabeena waalid waa laakiin uu idirqinayaa ii wada hooyo hadda waxaan ku leeyahay aabahan inuu dareemin maalinta inuu dareemin balaaya meesha ka dhaceyso waxaan rabaa inaad aabahan uusan dareemin adiga ninkan aad iska dheereysid may hooyo adi balan waani adi aabo idin kala qarnaa ninkan reer baadiyaha qalbi dhagaxana adi ana raab saaray hooyo kan waxaan rabaa inaad ninkan reer baadiyaha u reer magaalisidood qosashido tiraahday balaal macaano aniga adeertaay aan ahay iga dheero guriga kuma fiicno adeerada kuma fiicno bal meelo qaarkood wax ka tuso si wax u fahmo uma ay kamid kaane hooyo kan waa dhahay ani adiga ilma adeerana goorba ku guursaay oo iska soo jaraabo hooyo kan waxaan badow waay hooyo أنا هذا مرة وحاجة إنه إحنا ولا دجال مرة وده بلاي هذا وده قبضي يويل كي هذا سكودي إنه مرة وحاجة ما هو جبري صاحب هو يدد بصاحب وراويس لانتي إيه حاجة ما أنت قبضي بالله الله فرنتم كفرات كذا دعين السابر وناك سوي أيه معن ويس لسه قالنا وعن كوري إيه قبض لما كذا دعي إن ويل كي جرسته ها وكذا حاجة وكذا مداس هكعب سنة هذيك حشاك كل الله ووعن كوبرتون كربوي واساس حاجة هل مدبان قاعد صنية شيك قضياني اللقافة نقول مايا كبقي مداس جبر وهو يدد باليري هاي شيك قضي شانو سيلا ديلي تشيلو كلا نقول مايا كبقي مداس هذه والله هذه نحدو كبحنا كتير نحدو وهاجي سأرنتها إن شاء الله وريد مرك أي أركت وجهي كرو تاجسة وريا أبو gabadhayda aniga inaan ku jeclaa horta moogta ogahay aaba macaan aniga ninkan guriga joogo sababtan kuugu darayaan kuu sheegaya aabagahay
anigu sababtan kuu sheegaya hay ii sheeg ayadoo gogol la wada joogo odayaal badan ay fadhiyaan ayaa walaalkay odayaasha dhexdooda inta ka istaaga wuxuu yidhi walaalkay gabadha oo dhala wiilkayga u rabaa buu yidhi odayaashii meesha fadhiyey ayagoo aan dhihin wareedha ma israbaan iyo sidee waxay yihiin ayay qalinka ku wada duugeen hadda aniguna nin baan ahay oday aabo miyaan ka hor imaan karaa intaasoo qofoo ma joogo adna ilmiyaan kuu soo jiidaa aabaad reer magaalaatee dhagayso horta waxaa layidhi nin qool ka dhacay waa qolof geed ka dhacda leh waa gartee geedku hadduu qolofta ay ka dhacdo miyaa lagu celin karaa may aabo anigu qolka waa iga dhacay wiilkaa meesha joogana sidii candhuuftii carabka u sarreydoo kale dalaq ku siiyo siduu ku rabo anaaba ka yaaba habeen dhaweed baan gurigiis qolkuu degan yaha dariishadiis agtiis anoo fadhiyo waaba riyoonayaaba asagaa riyoonaya aduu kugu riyoonay aab su-aalan ku weydiinaadi horto naa wacaraa soo celi naariga saacare naagee nacanaa noo ruux saasuu ku dhahay aaba anagoo ilaa heer jaamacadeed gaarnay raalli maan ka taha adi inaan baadiil i geeyo oo beer la igu falo oo geel aan dhinac ka raaco oo aan ariga soo liso gabar aad adag baad noqonaysaa oo yadaaba waa ujeeda maxaa ka hadlaysa maya aaba ani maxaa waxbarasho iigu tiiri tacabeesho marka waan qarash u bixiyey oo yadaa waxaan isla joogna meel la yidhahda waa yaalay 3 habeen iyo 3 maalin inaan isla lugayna aniga iyada oo arkay weliba meel kayna dugaaga jooga aadan malayn karin casriga cusubaa la maraa xilli aheede naa dhagayso casriga hadba waa sidii laga dhiga weye sheekada ha ka dhigin la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan ha nooga dhigin dhib waxaan noogu fulan magaaladan waxa ka taagan dadkan aad mooda inay kala jeedjeedaan naa magaalada dad badan oo joogana qof kasta aduu ku fiirinaya waxa lagugu arkay aniga faaduba wax lagugu arko waa fahmi waaye mid kasta aad aragtaa beledka waxbarashadii dhan hal bacaad lagu lisamiyaa aabo qarashka ku bixisay iyo marxaladda magaalada ka taagan ee aad aragtay ee aan wax ku baranay iyo juhdiga aan wax gelinay naa beledka waxaa jooga baalla badan baa jooga mid kastaana adoo ku fiirinaya jiirada markaan ka baxo waxaa laleeyahay faaduman aan rabi lahaa mid dhaayaan maqlaya sarta dabaqa hoosteeda markaan mar mid kale ku doonaya aqoon-yahana ah soo maahan aabo markaan taga mid kale ku sii sheegayo fadhi ku dirada markaan taga sheekadaadaa lahayaa allay lee faaduma baryahan bannaankay taal yaa inaan qof wanaagsan ahaa aabo qof walba ii waa wada malab cad la tuuraa male ayaa lagu jiraa ma fahmaysaa sheekadan waa qaybsan tahaye qof baan miyaan qaybsamaana waa joogtaaye anigu qalinka halka uu ka qaldan yahay ma aqaan waxaa gabadhayda lagu arkana anigu waa kaa tegaya anigu waxaan kaa rabaa wiilkaa ma ujeedaa madax buura ee meesha fadhiyo wiil ka qurux badan oo ka dabeecad fiican inaad aaba labaajagay horta soo dhaqarto markaa labaajagay soo dhaqda waa edab darantaanayaa maxaa aabo aniga afxumada noocaas oo kalaa marna hayla iman haye xaaji gabadha waa la daarantaan u malaynayaa gabadha afxumada ka soo yeeraysa caasinimay soo wadaa horta xaaji aan kula kaftamay gabadha ma dooqeeda u daysid maxaa tiri gabadha ma dooqeeda u daysid xaaji sheeko cusub baa soo bilaabi rabtaa maya waa kula kaftamaaye waa awd markaan aan israbi jirnay haddii xaaladday ahayd gabadhan ma ujeeda wiilkaas aniga qolba aniyaan lay ceebayn af magac iyo maamuus ku lehnahay adduunyadan magac iyo maamuus ku leh waa oga xaaji ma fahmaysaa magaca soomaaliya marka laga soo tago magaca ku xigaa waa kayga ma fahmaysaa gabadha la wada arkay baan ku yiri kowdhe warku sidaa ahaado waan sii baxayaa maasha allah bal bixin oo kaala shaacawo bal intee u carraysaa maxaa la carartaa mar kasta anaaba kaa shakiyo meelaad gashaan u malaynayaa maya telefoon baa leega soo waco waxaa la yidhi berita wafdi baa imaanayo magaaladuna waa qam dariiran weeye albaabada la isugu laablaabaya baabuurtu ma socon karayso agaasima reer yurubaha imaanaya waa agaasima ka waran ayaa wadooyinka loo xeraya ilaahay maqaadirtiis badana oo hadda wax ma caabayso wax ma cunaysid ma xaaji wareedha agaasimaaba jidka loo xeraya intuusan agaasimuhu nagu imaan ayaan rabaa inaan wax soo kala agaasimo haye allah ku nabad yeelay warkayga ma fahamto haye xaaji haye nabaday haye xaaji goortii sheekadu ay intaa ay marayso ayay gabadhii waxa ay bilowday in markan ay qorshe kale ay samayso si ay markaa wiilkii uga dhaadhiciso in hawshan uu banaanka ka istaaga maadaama laba qof walaala ay yihiin kii oo dhagax meeshan yaallo derbi ah isaga jiifo bilaa barkina ayay u timid iyadoo weliba barkin qurux badan gacanta ku wado
oo dhahayso walaalkii oo barkin la-aan kuma anfacaysaa barkintan horta qabso hadalla macaan iyo sir naageed hee lagama salgaar goortay tii ayay bilowday inaa qosol been u sameeyo warkaale meeshaan u jiifaa ka waran ii waran kaale adeer saaxiib aan noqon inaan shalna waxbaan ka dhaadhiciye kan qalbi dhagaxa wax ma laga dhaadhicin aabay horta aabay waxay ahayd horta aabay aad jiidaysid iga dhaaf adii faadnoy acuudu billah war faadmo idhe faadno maane ya faadno xasbi allah hey faadnoy waxaan ku iri qof kaa fiican ilaahay amarkiisa oo gabara la igu diraane beledkan iyo baadiyaba kuma aragan ku dhax xogaa uu dhiga jiga haddaa caynis xataa man ku jawaabay kan haye horta qurux badanaad tahay qaabkaagana waa fiican yahay laakiin carabkaaga qalqallooc ku jira ilaahay markiis kan ma ooyama soo qoslaaye aabay inta soo fadhiisa sheeko fiicanan kuu haya anaa sheeko ku haya inta soo fariisaade arbiniga faadnaa sheeko ii hayso ii sheeg horta abuu shalayna waa kula hadlay ma fahamtay annagoo isla hadlaynaa naloo imaadee niyaho ani ilma adeeraan nahay laba qofood oo ilma adeer ma is aroosto ma is geedo adeertu maxaa dabaal iskaga dhigaya tan kaleeta adoo gabar jecel in nin lagugu darma jecel gabar lagugu darma jeclaan lahayd adi maxaa kugu dhacaa ninna jeclaano abuuno aabana adaa iga sasabi karano aniga horta anigoon ku rabino oo gabdho kale meelahaas ka fiirsahay adeerkee igu kaa qasbahay adeerkayna ducaan ka rabahay adoo kaloo majaqalqalloocan maba guursa lahayn adi dabaal markaas horta markaas ducaysa ma aragta أنا هذا يعني هذا نوع عنو أقول لغة تحب النقدين ساقيل ورعيسي أبا أنا ورك كلا قادن ورك هذا ما أنا هي فلقادين قال أسروح ذبضنا قبل وحين كسو أكتر نقول لبا متر أو مركزي سعيان إيه مركز سعيان إيه هذا الكأي كلها يان قروح دي سأل الله يابيس أديكو سانو أدير كيان ديدا إن مراهن قف كلا كوكودل واسك كاقادها أدير كيا كودل ما هي دوقيga aniga maba ahaan ba adiga aniga kaale kan dooqeyga ma ahaan u dhahoyaabe sug adi fiiri aboowe hay haddaa dooqaaga ahayn ani qofaa dooqiisa ahee gabdhahan oo labada mitir aa sheegayso oo ani iga dhaadheer oo ani iga qurux badan gabdhahaas ma xabadoo keensatid waa hagaaga ciyaarta hawada naga dhegaysanaysay sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado oo aad kala socoteen radio shabeelle habeenkan caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynayna qaybaha kale ee barnaamijyadeena annagoo u wareegayna markaana waa barnaamijkii ka qayb qaada dhismaha masjidu raxma iyo culamaa diinkii aan idinkaa dhexbaxo